Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegatay in ay dooneyso in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxayna ku amartay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR in ay la timaado qorshe lagu xiro xeryaha muddo 14 maalmood ah. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha Somali Official TV Cabdicasiis Barrow waxa uu wareysi gaar ah kala yeeshay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube. runtii arrinta qaxootiga jooga Kenya waa arrin caalami ah oo qaxootigu waxay ku joogaan sharci caalami ah, waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yiraahdo Geneva Convention 1951 oo damaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano ka soo baxayaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo, la daryeelo, la difaaco waxaasoo dhan. Marka qaxootigu wuxuu ku jiraa ximaayo caalamiya wax la yidhahdo international protection. International protectionka uu ku jiro ilaalada caalamiga ah ee dunidu u damaanad qaaday waxay runtii dunidoo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa ah u qaadan waaya in boqolaal kun oo qof oo qaxoonti macnaheedu waa la yaqaanaa waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnide ama dhaqaalada ama nololeed waxay ka soo kaxeeyey aad ogtahay xaaladooda aad garanayso. Marka dadka noocaasa in la siyaasadeeyo siyaasad laga dhex faadiyey oo humanitariankii iyo bini'aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan tuunsanahay inay kooba xiriir la leedahay arrinta badda, maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino nidhaahno waanu heshiinay, aanu diidnay, aanu maxkamad geynay. Aargoosi wax u eg in laga aargoosto dadka maatida ah ee qaxoontiga ah ee duruufaysan, runtii arrintaasi duniduna waa dhibaysaa, annagana waana dhibaysaa. laakiin idinkuba safiirkeennii halkaas waad ugu yeerateen, diblomaasiyiintii waad ka soo saarateen Soomaaliya ee Kenya joogay, xiriirkii labadii wadan meesha uu ka baxay. Kenya dhowr jeer waxay codsatay wada hadal in la galo, soo uma eka in Soomaaliya go-aanka Kenya ee keliya oo arkaysa mid siyaasadaysan, laakiin idinka wejiyo badan wax lagu samayn karaa aad meesha ka saarteen. Wasiir aan kuu sheegay mid hadda ay weydiisay waqti waxaan ku yiri waxa steediyada ama wadamada waxa ka dhaxeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kulliba arrimo dhexdooda ka dhaxeeyaan oo ay ka wada hadlaan, isku diidan yihiin, isku waafaqsan yihiin. Laakiin taasi ma inay saamayso maaha boqolaal kun oo qof oo jilicsan oo maata ah oo qaxoonti ah inay saamayso maaha. Wax kalena maaha. Cilaaqaadku wuu xumaaday, safiiradii waa qolo walba safiirkeedii waa u yeedhatay, laakiin waa arrin siyaasadeed ma aha arrin bini'aadanimo. Markaas runtii adduunkoo dhan shock bay ku noqotay, qaramada midoobay iyo United Nations ay ku noqotay fashiciso, wadamada gobolkoo dhan baa yaaban, Soomaaliyana qayb ka tahay. Laakiin dadka siyaasadda dowladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go'aano dowladda Soomaaliya hore uga qaadatay arrinta Kenya aysan ku eegin dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga oo tilaabooyinka aad qaadeen dhinaca diblomaasiyadda ay degdeg ahaayeen eedaa ma qaadanaysaa. Qaxoontiga caalamiga waxa ay ku jiraan wax la yiraahdo ximaayo caalamiya international protection waa UNHCR ayaa maamusha aqoonsan, waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxoontinimo ee caalamiga iyada oo ay waafaqsan tahay 1951 axdigii la saxaxay ee Geneva ee qaxoontinimada. Marka wax ka khuseeya siyaasadda labada dal maba ahaba. waad aragtay qaxoontigu ma Soomaaliya wax siisan ma Kenya wax siisan midna waxa ma siiyo. Waxa laga yaabaa cidda ugu badan ee ka faa'iida qaxoontiga ee Kenya tahay waxa la sheegayay lacag $1 billion inay sanadkii ka hesho dowladda Kenya. Inagu ma hayno Kenya lacag ay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigtay, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalka qaxootiga magan geliyay wuxuu helaa gaadiidka, wuxuu helaa shaqaalaha, wuxuu helaa dhulka, wuxuu boqolaal faa'iido ayuu qaxootigan kaga qaatay ayuu alfarsaamo wax qarsoon maaha waa ilaa $500 billion waxa leedahay baabuur Kenya leedahay qaxootiga uga shaqeeya ma aragti maaha waa facts
macallimiinta ka shaqeeya, dhakhaatiirta ka shaqeeya, baabuurta ka shaqeysa, xafiisyada ka shaqeeya, diyaaradaha ka shaqeeya intaba Kenya leh. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo UNHCR wax xiriir mid la soo sameeyeen oo ku aadan qaxootiga Soomaaliyeed iyo sida loo maareyn karo. Walaal weli ma la soo sameeyay, laakiin waxaan markasta u rajaynaynaa qaxootiga caafimaad, qaxootiga u rajaynaynaa nabad, waxaan rajaynaynaa inay barwaaqoobaan, waxa aan ka shaqeynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino gobolada ay ka qaxeynayso Jubbada Dhexe oo kale waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa dagaalaha ka socda waa la haystaa ilaa waxaa la xaliyana qaxootiga kuma soo noqon karaan Jubbada Dhexe. marka runtii waxaan isleeyahay dawladdu waxay ka shaqeynaysaa dalka dadkaasi mustaqbalka qofkii raba waa qaxooti caalamiya qofka caalamiga isaga khiyaarka ama doorashada isaga leh inuu dalkiisa ku noqonayo iyo inuu joogayo UNHCR la joogayo iyo in la qaadayo saddexdaba isaga u doornay laakiin annaga waxa lagu waajibaa in qofkii raba ee qaxoonti ah inuu dalkiisa ku soo noqdo ee gobolkiisa ku soo noqdo aan ka shaqeyno in loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyay duruufo ka duwan ku soo noqdo. qaxootidaas 30 sano ay Kenya degan yihiin oo caruur ku dhashay caruurtooda ay qaan gaaray haddii lagama maarmaan ay noqoto in Soomaaliya lagu soo celiyo awood ma haysan aad ku qaabishaan waataan ka shaqeynayno dalkeena waxaan wada fiican buu hayaa wadadii soo qabashada meel fog baynu ka nimi waxaan ka nimi dal burburay dawladiisii burburtay hay'adihiisii dawliga burbureen hay'adihiisii dhaqaale burbureen hay'adihiisii kaabayaasha burbureen haddun baan iftiinkii indaa ku soo kala qaadnay inkastoo dagaal adag inagu socdo la rabo in godkii laynagu celiyo laakiin waxaan xukuumad ahaan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay laynagu riday 91 inaynan dib ugu noqon. Kenya dhowr jeer ay ku dhawaaqday in xiriir xiris welina ma muuqato dawladda Soomaaliya dadaal ay ugu jirto sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu sameyn lahaa hay'adaha gargaarka Soomaaliya ka shaqeeya waxay tilmaameen 2.6 milyan oo Soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen oo in badan Muqdisho ku sugan yihiin xaalad aad u halis ah oo nolosha ah ay wajahayaan haddii xaaladdu ay sidaas yihiin maxaa nolosha loo sii qorsheeyay way dadkaasi ma sheegin sababta waa 2.6 waa abaarta waa abaar runtii abaar baa dhacday roobkii dayrta filaynay baan intii loo ilaahay ka rajaynaynay roobkii baa yaraaday markii roobkii dayrta yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday abaar baa dhacday waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeeda maarsa la yidhaahdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa abril buu roobku daa in roob fiican inoo doo abril 15 wixii ka dambeeya xaaladaas way keentaa markastoo abaari dhacdo dalkan xaaladda duruufta way saameysaa. kaasi waxaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Asmaan Abukar Dube oo waramaya wariyaheena Cabdulcasiis Barrow daawadayaal wixii warar noo soo kordha waxaad ka daawan doontaan barteena YouTube-ka ee Somali Official daawadayaal waad ku maasantiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan muuqaaladan idin soo gelina boggeena YouTube-ka.